xadka Soomaaliya iyo dawladda Soomaalida gaar ahaan gobolka Afdheer waxaa wali ka socda dagaalo u dhaxeeya ciidamada Liyu Police iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen gobolka Afdheer dagaalka oo labadii maalin la soo dhaafay ka socda magaalada Haluul ee gobolka Afdheer walina si goos ah uga socda halkaasi ayaa waxaa ka dhashay khasaaro kala duwan oo dhimashay dhaawac la isla markaana soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay ciidamada Liyu Police oo ka hadlay dagaalka ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana ay ku dileen dagaalkaasi isoo kale kuwa kale ku dhaawaceen ciidamada Liyu Police ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen ku dhawaad 50 kamid ah dagaalyahanada Al-Shabaab kuwaas oo gudaha u galay dawladda Soomaalida sidoo kale ciidamada Liyu Police waxay sheegeen in dadkan loo dhaadhiciyay xabsiyada isla markaana kuwa dhaawacyada ah la daaweyn doono si ay hadal ku dhigaan sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka Liyu Police oo warbaahinta la hadlaya sheegay in ay ku hareeraysan yihiin deegaanka Hulul oo hoostaga degmada Hargeysa ee gobolka Afdheer kaas oo ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab waxayna sheegeen in dagaalku uu ahaa doono si socodon ilaa ay Al-Shabaab ka saari doonaan dawladda Soomaaliya Itoobiya kadib markii Al-Shabaab la maalin ka hor ay gudaha u galeen dawladda laamaha ammaanka oo dhankooda guula ka sheegtay dagaalka waxay sheegeen in soo kala Al-Shabaab laga qabtay ilaa 16 gaadiid oo kamid ah gaadiidka ay wateen dagaalamayaasha Al-Shabaab dagaalada ka soo dawladda Soomaalida ayaa ka dambeeyay kadib markii Al-Shabaab oo wata gaadiidka dagaalka noocyada kala duwan ay weerareen deegaano ku yaala dawladda Soomaalida inta kadibna uu sidoo ku bilowday dagaal ku dhaxeeya ciidamada Liyu Police Al-Shabaab dagaalamayaasha Al-Shabaab oo dhankooda ka hadlay dagaalka ka dhacay xadka Soomaaliya iyo dawladda Soomaalida ayaa sheegtay in guul ay ka gaareen dagaalka ay la galeen ciidamada Liyu Police waxayna hadal ay ku qoreen bartooda internetka ay ku sheegeen inay khasaare gaarsiin ciidamada Liyu Police dagaalka oo ah wili mid si goos laga maqlayo gobolka Afdheer ayaa dadka deegaanka waxay wajahayaan cabsi xoogan iyagoona sheegaya inay ka baqdan qabaan in khasaare xoogan uu ka soo gaaro dagaalka maalintii 3 si goos laga maqlayo gobolka Afdheer ee dawladda Soomaalida